بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال سلامتا إسلام نمدا كدب وحان جعلها مانتا إنان كهدلو موضوع كسابسا dabkii qabsaday xaafadweynta balbala ee dalka jamhuuriyadda Djibouti. dabkaasoo culays weyn ku lahaa dalka, isla markaasina ka tagay raad naxdina oo dhammaan ummadda reer Djibouti iyo basharka kale ee dunida kula nool ee daawadayba ku argagax ay ka qaadeen. marka waxaan jeclaaday inaan mowduuca aan ka hadlo aniga oo jecel inaan uga hadlo sidan soo socota. horta marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan walaalaha dabka u qabsaday sabir iyo iimaan inaan u diro, inaan la qaybtamo dhibaatada culus ee ku dhacday ummadaas aan ka midka ahay ee walaalahay ah. ilaahayna tabaaraka wa tacaala aan u weydiiyo inuu wixii ku dhacay uu ka abaalmariyo wanaag fara badan, khalaf ka fiican wixii ay waayeenna ilaahay uu siiyo subxaanahu wa tacaala. intaas kadib waxa weeyaan walaalayaal, waxaan jeclahay inaan ka hadlo mushkiladda dabkan dalkeenna kusoo laalaamaya. waxa weeye sida aan ka dhagaysanay idaacadda dowladdu amba xukuumaddu ay gacanta ku hayso 150 guri ah ayaa gubtay bay yidhaahdeen. dad kale oo adeecadda ka agdhow dowladda 250 iyay sheegeen. dad kaleeto oo bulshaweynta balbala deganna waxay sheegayaan 300 ilaa iyo 400 oo guri inay gaadhsiisan tahay guryaha gubtay bay sheegayaan. waxaa markaa jira masaadirta iyo ilaha laga helayo macluumaadka kala duwan wuxuu inoo sheegayaa in uu idiraab ka dhexeeyo, isdiidmo iyo argagaxu ka dhexeeyo qolo yareynaysa tirada iyo qolo dhadhaxaynaysa tirada iyo qolo ballaadhinaysa oo badinaysa tirada. laakiin haddana xaqiiqadu waxay ku jirtaa sida ay yidhaahdaan culummada istaastigu marka uuna wadanka ka jirin tirakoob rasmiya in dhexda uun laga qaato weeyaan. qolada yareynaysana laga kor qaado, qolada badinaysana laga soo dhaadhaco. 250 ilaa 300 oo guri inayna ka yaraaneyn ayaa muuqata. 300 oo guri oo ku yaala xaafad aada u weyn oo ay degan yihiin dadka reer Djibouti 60% dad ku dhow caasimada dadka degan, haddayba ka badnayn. xaafadda weyn ee dadka reer Djibouti ugu badan yihiin ayuu ka dhacay ololkan iyo dabka kan. wuxuu ka dhacay meel lagu tilmaami karo 3 sifadood. sifada koowaad waa aqalo cashwaaiya, hab uma dhisno planificationka dhismaha, yacni dowlad uma fikirin, dadka iska degay ambase dowladdaas dejisay si aanan sax ahayn bay u dejisay. marka waxaa ka maqan habkii magaalo loo degayay. marka waxaa dhada deganaanshaha caynkaasa cashwaai, meelaha la iska dego ee dadku ay iska fadhiistaan oo aan lahayn wixii dowladnimo laga sugayay oo dhan inta badan aan lahayn. sifada labaad ay leedahay waa muqtad bashariyan, dad aada u fara badan oo bini aadana ayaa ku nool, yacni tiro weyn baa meeshaa fadhida oo ka badan meelaha kale. arrinta saddexaad ay meeshu leedahay waxa weeye bulshada ugu baahi badan dalka ee ugu faqiirsan dalka ayaa meeshaa degan. marka waxa weeye 3daas sifo meel leh ayuu dabkaasi haleelay uu qabsaday. markii horeba si xun bay u deganaayeen oo looma fikirin. waa markii labaadee aad bay ugu badnaayeen deganaashaha. guryuhu waxay isku wada hayaan geerka, dhinacay isku wada hayaan, jidad dhex maraya ma jiraan. meelaha qaarkood waxaa u dhexeeya dixo iyo jarar baa u dhexeeya iyo dhagaxdii ilaahay ku abuuray oo waxba laga qaban oo sida u yaala. waa marka saddexaad ee ugu dambeysana faqrigii oo dhan ayaa meesha yaala. markaan aragtida ka qaadano
waxa weeye meesha gubatay waa meel sidaaya dadkuna ay sidaa ku yihiin marka waxaan u imanaa ikhwaani fillah mushkiladan dabki ma aha arintii ugu horeysay oo uduba oo dalkeena ka dhacday ma aha waa arin soo taagnayd muddo fara badan ilaa uu madaxweynaha dalku yiri isagoo idaacada ka hadlay waan ognahay xagaa walbaba inuu imanayo dabi macnaha waxa weeye waa dab imanaya oo lagu tala gelin haduu yimaado sidii looga hortagi lahaa waan ognahay buu dab inuu imanayo xagaa walbaba marka ay dabayluhu bilaamaan inuu dab imanayo waan ognahay buu marka sidaas daraadeed waxaan ognahay dabkaasi inuu ahayn dab maanta bilaamay dab soo taagnaa xaafado badan kaartay ama gubatay xaafada koobaad xaafada labaad xaafada saddexaad afaraad ilaa laga soo gaarayo xumbuli waa caasimadii ama Djibouti-ville waxaan ognahay waxa gubatay balbalo oo meel fara badan gubatay marka ololkani maaha wax soo noqday weeyaan wax mar uun dhaca ma aha su'aashu waxa weeyaan walaalayaal waxaan jecelahay inaan horta aan eegno daahiradan fariimaagan dabkan ololayahay waa mushkilo weeyaan waa problem marka dawladuhu markay problem hor yimaadaan sibay uga hortagaan adduunka markaan akhrinay cilmiga la dhahdo cilmi weyn oo waxa jira idaaratul azamaat waxa jira waxa administrationka kriiska sidee loo maamulaa markay azma dhacdo crisis markuu dhaco ama crisis markuu dhaco hab loo maamulo ayaa jira oo dhigan haduu yahay mid bini aadanku sameeyo iyo haduu yahay mid najarka oo ilaahay uu sameeyo subhanahu wa ta'ala hadaba su'aashu waxa weeyaan walaalayaal waxay dhahdaan culimadu mushkiladu waxay martaa saddex jaranjaro waa marka laga eego mustawayatul mushkila mushkiladan jaranjaradeedan in sheegaya ta ugu horeysa waxa dhahdaa mushkil haday dhacdo waxay hortay waa problem مثلا laba ruux oo guri ku wada nool ba iskhilaaftay waxaan dhahaynaa mushkila zawjiya jirta waa problem familial waxaan oran karnaa laba wadan oo jaara isdiraray sida مثلا Eritrea iyo Djibouti dalkeena kale waxaan waa mushkila bayna dawlatayn problem laba dawladood dhex yaala waxaan oran karnaa waxa jira khilaaf dhex maraya laba tayaar siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidka waxaan dhahaynaa waa mushkila siyaasiya waxa markaa dhada waa problem taas jaranjarada koobaad weey hadii la xalin waayo problemka markuu problem yahay hadii loo waayo solution oo la dhaadhici waayo oo si loo xalin waayo problemku wuxuu noqdaa crisis wuxuu isku bedelaa azma waxay ka dhigan tahay amba crisis waxay ka dhigan tahay mushkilad imika maaha waa dhibaatadii oo laba laabatay weeyaan oo u baahan solution ilaa xidada gaaraya oo adag weey hadii la xalin waayo oo loo waayo azmadii iyo kriiskii hadii xal loo waayo way ka talaabtaa waxay gaadhaa wax catastrophe kaaritha arin aanan argagaxay abuurtaa waa argagax baa dhaca marka taasina waxa weeyaan waa meesha ugu dambaysa ay gaadho problemku mushkilad buu noqdaa azmu ku xigta af carabiga kaariso noqdaa afka qalaad waa problem kriis baa ku xiga waxa ku xiga marka saddexaad catastrophe noqdaa halis buu galaa marka waa dhinaca mustawayaadka weeye dhinaca labaad marka laga eegayo problem marka la baarayo cilmiga idaaradda sidee loo maamulaa crisis waxa la dhahdaa criiska waa la qaybiyaa waa imsan nooc criisku waxay u qaybiyaan laba nooc waxay dhahdaan waa mid nature ku keeno iyo ku gaaladu nature bay dhahdaan nature bay dhahdaan waxa keenaya dhul gariir baa keenaya duufaan baa keenaya hilaac dhacayo dab uloliya keenaya kaymo gubto iska gubtay baa keenaya dabaylo xun oo wadanka yimida keenaya daadad baa keenaya hada yusama waxa taa dhacdaa waa mushkilad amba waa kaarisad catastrophe waxa dhacdaa natural waa nature talabaad waxa dhacdaa waa catastrophe bashari bini aadanka sababta keenay imika mid saddexaad baa soo baxday oo dhexda taalo dhado catastrophe amba azmad crisis bashari tabiici waxa isgargaarsanaya wixii nature-ka ahaa iyo wixii bini aadanka sida wadanadeena geeska Afrika markii geedaha la guray geedihii la guray bashar baa guray nature-kiina muxuu keenay abaaro marka abaaraha imanayay bini aadankuna waxbuu ku leeyahay samadii go'deena waxbay ku leedahay ambasa si kale hadaan u dhigno cirbaadii geedihii ka qabanayay baa la mariyay daadad baa imanay dadkii iyo xayawaankii iyo xoolihii baa biirayaan idan iya sameeyay waa nature marka la eego
لكن أسل كيسو وبشري إلهنا القرآن كوحكو يري ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الدونك وحا دباتك دعيوردان فسادا وحا كينا قعنت بني آدنك إلهي الدونك هجاجية مركيسي هربا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إلهي وحول مركان دولك هجاجية كدب أبأنيننا أحميننا مركا هداد حمان أركتين إلهي ما كانوا حمانته سبحانه وحا كينا بني آدنك كينا وقلد آدمي كدعا أوكي مركي هرواس لسعودنا مركي هروح هاروني كريسكو صدح مشكلة صدح وقيبستا مستوى صدح عتاب dhinaca kale laba loo qaybiyaa waa bashar iyo maxaan dhahnay iyo nature dhinaca saddexaad waxaan ka oran mid saddexaad baa ku soo biirto imka dhado labadiiba isku keenaysa okay problemkan dhinaca kalena waa laga eegaa mushkiladda waxaa la eegaa min xaysi zaman waqtiga laga eegaa ma wax mar uun dhacaa mise wax soo laalaam matalan wadan gariira sida Japanka oo kale amba Djibouti wadan volcan leh in anagu waan iska iloonaynaa gariirnay dawladuna waxba kuma talagelin imika wadanka markuu volcan leeyahay uu gariir leeyahay wuxuu leeyahay problem soo noqon karayo leeyahay oo dhada gariir dhulka gariir karaya marka taa waxa dhada waa mushkilad soo laalaamata iyo mushkilad mar uu dhacda oo binaadamka ku dhacda marka laba loo qaybiyaa mushkilad mukarrara problem soo noqda iyo problem mar uu dhaca oo la xaliyo okay marka aan ku eegna dabkan Djibouti ka dhacay si scientific oo cilmi ah oo ku eegna cilmiga idaaradda haduu quraan yahay haduu xadiis yahay haduu fiqh yahay haduu qaanuunka idaaradda yahay darwaaga maarata amba xeerka la yiraahdo administrationka haduu yahay tanmiya bashariya cilmiga iimaanka iyo developmentka haduu yahay hatta cilmiga siyaasadda si ummad loo dhaqaa haduu yahay dhan walba cilmiga moraalka haduu yahay akhlaaqda haduu yahay intaba hadaan ku eegno mushkiladan Djibouti ka dhacday ee dabku maaha mushkilad problem maaha qofka dhada مشكلات با كدعدو دبا اولي وا بينتي وحشاي كريز ماها ازمه ماها وازمه ورون لكن way ka weynaato waa catastrophe waa karisa waxa wadanka ka dhacaya waa karisa waa geeri weeyaan waa ummad dhan oo baabaaday weeyaan oo wixii yaray haysteen iyo ko fuqara ah waayay weeyaan okay inta markaan ka soo baxnay ee dabkii aan garanay inuu yahay dab soo noqnoqonaya inuu yahay dab gacan bini aadan ay sameynayso oo uunahayn wax ilaahay keenaya subhanahu wa ta'ala oo madaxweynaha iyo dad farbax waa maqaadiir beelad ilaahay baa keenay ilaahay lagama xishoonayo tabaaraka wa ta'ala ilaahay wax iskama keeno adiga sameynaya marka adiga ka mas'uul dambigaaga okay arinta saddexaad waxa weeyaan waa wax soo noqnoqonaya waxaan oranay waa karisa waa catastrophe meesha ugu sarreeyay gaadhay laba waxaan oranay waa tabiici maahina waa bashari waa bini aadam baa sameeyay saddex waxaan dhahnay waxa weeye waa arin soo noqnoqonaysa okay su'aal baan isweydiinana maxaa keenaya dabkan soo noqnoqonaya lama garan karo solution lama gaari karo hadii aanan la garan sababtana waxa soo saari kara aqoonyahanka reer Djibouti oo xor ka ah siyaasiyiin oo xor ka ah aragti qasbaysa inay shiraan oo ay dhahdaan taa iyo taa ambase in la qoro oo ninba ra'yigiisa uu keeno la ururiyo oo la isku keeno iyaa keensanaysa idan su'aashu waxa weeyaan walaalayaal sababta keensatay in uu dhaco dabkan soo laalaamaya muxuu yahay ani markaan dib u eegay dababka reer Djibouti ka dhacaya waxaan idhi waxa keenaya afar sababood baa keenaya sababta koobaad waa maxay sababta koobaad waxa weeyaan waa xukuumad waa dawladnimadii garan weyday maamulkii garan weyday shaqadii loo idmaday garan weyday amba ay isku idmatay oo samaysay waxa dhado asilaad jamaaciya istiqaala jamaaciya demissionisay dawladdu waxay ka demissionisay mashruucii ummadda ay u haysay oo ah inay ummadda u samayso guryo oo su'aal baa taala magaalada Djibouti waxa garab yaala 3 magaalo oo aan dad inalamida ay galaan dab kama dhaco magaalooyin dawlado waaweyn ay ka dhisan yihiin maaha Yurub iyo Mareykan igama sheekeynayo magaalada Boor ma la dhahdo Djibouti waxa u jirtaa wax aanan 100 iyo wax yar oo kilomitir ba u jirtaa ma maqalna dab baa ka dhacay ololaya jiilaal iyo xagaaba ma marka qaarkood wax yar waa dhaca Hargeysa Djibouti waxa u jirtaa wax 300 oo kilomitir ka yar dab baa ololay oo magaaladii baa bururtay kama maqalo magaalada Dirdaba la dhahdo waxa u jirtaa Djibouti 300 oo kilomitir kama maqala dab baa ololay oo ka dhacay
بل وحوي حتى هي جدها جيبوتي كويا على كمان مقال يبقى كده سيدا علي سبيح يدخل يتجرى يأبخ كمان بقال له سؤال شو حوي هذا بوكوا جيبوتي لماذا جيبوتي marka su'aasha waxa ka jawaabaya siyaasiga hawlo kala ku maqan ee hawshii loo idmaday aanan ka shaqeynin arinta labaad waxa keenaya waxa weeyaan habka magaaladu u dhisan tahay 40 sano ila markii guumeysiga isaga ma qabsan karna anaku isticmaar buu ahaa una guumeysanayay sidaa buu inoo dajiyay magaaladana si loo degan yahay wuxuu u bixiyay ku meel gaad wuxuu waxaas waa wada ku meel gaad magaaladii ma habkii magaalanimo maaha waa ku meel gaad annaguna ku meel gaadkii baan ku dhifanay 12 goor intuu isagu kaga tagay baan ku sii beeranay marka wadankiiba waxa ka dhinay wadan ku meel gaad loo degan yahay marka su'aashu waxa weeyaan hadaba ayuha al-ikhwa التخطيط العمراني waxa loo yaqaano iyo maqan qiyab waxa maqan planification kii habkii magaalo loo planifinay iyo maqan arinta saddexaad ee maqan waxa weeye xisba maqan dareen wadani wadankan dareen ma jiro okay oo dareenka waxa baabiyay waxa weeye qofka bini aadanka wixii dhisay ma jiraan idaacada Djibouti qof baa laga amaanaa system baa laga amaanaa laakiin maaha idaacad ka sheekaysa problemyada iyo mashaakilka waa غياب بناء الحس الوطني in la dhiso dareen wadaninimo dadka uu ka maqan yahay dareenka wadaninimo wuxuu abuuraa qofku inuu wadankiisa dhowrto magaaladiisa dhowrto dhulkiisa dhowrto quruxdiisa dhowrto waxaas oo dhan ayuu abuuraa marka taasina Djibouti way ka maqan tahay arinta ugu dambaysa waxa weeyaan walaalayaal waxa weeyaan wadanka waxa ka jira kulayl ziyaada korontaduna waa qaali dadka markaa waxay ku qasabtaa waa waxa la iska qarinayee inay korontada xadaan maadaama wadanku aad u kulul yahay korontadiina ay qaali tahay dadku korontada xadaan markay korontada xadayaan dab baa istaabta olol baa ka dhaca way keentaa waxaa kaloo keentaa dadku markay gaajoodaan ay faqri ku noolaadaan way is ilowsiyaan gaajada iyo faqriga waxay isku ilowsiyaan inay barjeeyaan inay badeecad cabaan badeecada dab baa la shidaa dabka uu huraa magaaladu galaa dadkan khalad oo dhan wuxuu ka imanayaa waa waxa dadka dhibaatada haysta weeyaan marka anu waxaan isleeyahay asbaabta keensatayna waa afarta sababood kuwa kaleetana waa lagu dari karaa oo idaacada laga sheegayo ah inuu wacyi jirin iyo waxaas oo dhan waxa weeyaan siyaasad dalka si fiican u hagaysa u hufaysa u horseegaysa iyo maqan okay maxaa xala su'aasha aanu imanayna wax weeyaan maxaa solution inta aan sheegin solutionka maxaa ani aragti ila tahay oo aan arkay saddex solution oo quraatay in maanta soo bandhigo waxaan sheegay laba arrimood waxa aad iga argagixiyay marka ay dib u dhacaan ragii dabdamiska ah ee wax baqtiinay protection civil ka loo bixiyay ee maartay al-difaac al-madani la dhahdo ambasad dabdamis Soomaalidu ay tiraahdo marka ay saacadoodii dib uga dhacaan bulshooyintii waxa ku dhacaysa inayna lahayn dawlad iyo dad u naxariisanaya marka iyaka iyo dawladii baa kala durkaya iyaka iyo qoladii dabdamisku way kala durkayaan marka maxaa dhacay marka ay wasiiradii meesha yimaadeen wasiir aan balbala iman kareen oo dul socon kareen oo dhagaxda aan sida loogu socdo aan garanayn oo lugaha dhugi kareen dadkii baa shiiday markay dadku shiideen kama dhigno inay shiideen cadow waxay ka dhigan tahay waxay cabirayaan inaad tahay qof intifaada weey intifaadada Falastiin laga sameeyo kale wax weeyaan ee lagu leeyahay miskiidka Aqsa waa inaan galno iyo adna lagu leeyahay intifaada kugu sameeyna waan kugu sarakacsanay waan ku diidanahay weey waxaan habkaad noo wadid baan diidanahay weey waa lagu cabiraya marka adiga shiidka lagu shiiday kama dhigno in la shiiday baabuuradii sida loo macnay baabuuradii lama shiiday ummadda reer Djibouti ma shiidaan waxa ay leeyihiin iyo kale waxaan waa baabuurkoogii waa noloshoodii waa gargaarkii uga yimid wadanka Japan weeyaan marka gargaarkii Japan uu siiyay waxa ku qoran peopleka Japaneegu wuxuu gargaarka u soo diray peopleka Djiboutiyaanka populationka loo soo diray shicibka reer Djibouti baa lagu soo gargaaray marka waxaan aad u la yaabay inaan maqlay qof mas'uul oo leh 100 malyan oo faran buu taagan yahay baabuurka qofka reer Djibouti ka qaalisan 100 malyan oo faran quraankeena ku qoran tahay xadiiskeena ku qoran tahay nabigu wuxuu kacbada waxa ka qaalisan qofka muslimka kacbada ilaahay uu ka qaalisan qofka muslimkii kacbadoo la dumiyo iyo qof muslimo
la dilo amba gaajo lagu dilo kaaba ka xun maxaad u malanaysaa marka aad baabuur ilaalinaysa leedahay waa sharaf buleeya ee guryo dhan oo dumay una ka nixin arrinta kale iga nixisay waxay ahayd ee labaadi inay siyaasiyiinta reer Jabuuti weerar u qaadeen ee dalka xukuma ayna ka hadal shicibka waxa qabsaday qof calaacalay oo minister ma maqal madaxweynuhu calaacalay oo leh waan ka xunnahay dhibaatada ummadda reer Jabuuti maanta gaadhay waana la qaybtamaynaa waana gargaaraynaa calankan dhaadhicinaynaa كارثة دعدة وكاتاستروف 400 أو فاميليال أما 700 أو فامي أو مانتا بلا أبد كوجي عيال كوجي إسلاموجي أي طريقة جيفان أو إسكورة لوجي أو قحوتكم نقدر لكم الحديثين وكاتاستروف يعني مشكلة المشاكل بعد عليه مركا أرنت على جو محليو إن دتك الهويرارو أم بس حل كلا هذا سحب المشكلة إلى الآخرين دتك كلا بسيو دياسبورا بكدم بيئي iyo maxaan ku dhahdaa mushkiladda waxa sameeynaya abuuraya dad mucaarada iyo luqadda lagu sheekeeyo waa la qaataa mashruucaga mashruuc dambigaaga waa la qaataa arrimaha markay ka dhacaan wadanada waaweyn ee dimuqraadiyadda leh ee xurriyadda leh ee karaamada leh ee bini aadanimada leh marka ugu horeysaba lama casilo qofka maamulka hay isaga iska taga shaqada waan fashilmay buudada annagu de shaqo ka tag ma naqaan isma casili karno haddii is casili weydina waa in lagu casilo oo ku casilo kii ka sareeyay shaqada ku dhibtay haduu ku casili waayo waa inay warbaahintu ku casisho oo warbaahintu ay kacdo oo ay weerar kugu hayso oo tiraad khaladkan halku ka yimid muxuu dib ugu dhacay ninka ka shaqeeya iyo shaqaalaha qolada dabdamisku ayna kaanu intuu dabkaasi ululiyay halay ku maqnaayeen problemka ayaa keenay okay ciyaal baa dhagax tuuraya war dadku haday hadal qaadaan nin dawladda ah aqalka loogu yimaado la xidhaa kuwa dhagax tuuraya ma laga joojiyo away ciidankii halkay mareen markaasi ciidankii baabi'iyay reer mawlid dhiganayay halkay ku maqnaayeen maanta marka ay ciyaal yar dhagax tuurtuurayaan oo meeshii la dabdab kala daminay laga maqnaanay waxaasi maartay wax la iska sheekeeyo ma ahin ikhwaani fillah halku waa saddex halka koobaad waa maxay ikhwaani fillah halka koobaadi waa ana la kala saaro arintan imika dhacday iyo arinta Jabuuti 10 sano soo socota arintan imika dhacday 2018 oo dhici doonta imika dhici doonta xaga dhiciisa meel kala guban karaya wax dhici karaya laakiin waa inaan orno istiraatiijiyad ila dejiyo waar Jabuutidani maaha magaalo waa inaan sameeyno Jabuuti kale dad baa isweydiinaya sidee loo sameyn karayaa Jabuuti kale ana ku sheegay Jabuuti kale soo sameeyo waa facility weeyaan waxaad ogtihiin madaxda qaarkood مثلا madax Jabuuti qofka iyo guri Paris kule lagu qadaray wax ka badan 2 milyaar oo faranka Jabuuti ah okay aqal Jabuuti ku yaal oo milyaar ajira waxaas oo dhan waa in la iibiyo oo qofku yiraahdo waan ka tanaasulay iyad uga tanaasushay ummadda daraadeed si Umar ibn Khattab uu sameeyay si Umar ibn Abdul Aziz uu sameeyay limaada dad baa koraya Umar ibn Khattab iyo gaaraya wartiroodo baa sameeyay ninka ka ra'iisul wasaaraha waa gaal wadanka buu xukuma waa maaratay muslim ahayn uu sameeyay uu ka tanaasulay xaqiisa marka ay wuxuu qaataa wax yar oo caadi ah si caadi uu iska nool yahay ifcal hada ummadaada uga tanaasul okay malaayiintan lacagta ah ee ciidamada dhulka degan nooga imanaysa ee meeshay martile garanin lagu dhiso magaalo kale la sameeyo dadka reer Jabuuti planification 10 sano soo socota waa in la fikiro oo hab loo sameeyo sidan ay yihiin aan ahayn khalad way in la raado war aqalaan faqiiriinta u dhisayna ana bilaabay shicibka Jabuuti inaguna kees sameeyo ila dhisa wixii maalintii lagu sheekeeyay waxba ay ka jireen waxa waa in laga tago oo la raado planification saxa inta la sameeyo takhdiid umrani magaalo cusub la raado caasimadii Jabuuti waatan ummadu ha ka baxaan cashwaa'iga istiraatiijiyada loo sameeyo taas halka dabka joojinaya waa taawiyo halka labaadi waxa weeye ikhwaani fillah waa in la garto magaalada inta shir la qabto oo la sameeyo guddi ka hortaga katastroofka dhacdo oo run ah oo ka kooban 3 qolo xukuumadda iminka xukunta ka kooban dadka aqooyahanka ah ee xukuumadda aan ka mid ahayn ay ku jiraan iyo civil society-ga kuwa la jecel yahay maaha xataa kuwa aan la jecelin ee hore u yaqaanay habka looga hortago dad baa jira waxa ka soo shaqeyn jiray oo aan ka mid ahay in dadkaas oo dhan loo yeero oo la dhaxdo walaalahayo sidee baan Jabuuti uga badbaadinaa inta waxa aan gaadhino waxyaalada caynkan oo kale taa haday dhacdana gargaar seen u helaa haday dhici weydana haday intayna dhicinna seen uga hortagnaa haday dhacdana seen u xalinaa marka ay dhacdo kadibna raadka ay ka tagto aasaarta ka tagto maxaan ka qaban karnaa
sidaa bay u fikiraan culummada iyo aqoonyahanka iyo mufakiriinta iyo mukhatidiinta istiraatiijiyiintii maaha wax ma la yidhaahdo annagu waxaan matalaynay hebel baana soo diray hebel baa shaqada qabta naga yidhi maaha dowlad baa tahay waa inaad qarar kaga qaadasid weyaan marka taasina waa talabaad weeye haddaa la rabo in xal laga gaadho arrintan waa inaa la sameeyo guddi qaran oo aanan ku xidhnayn xukuumaddu ka mid bay ahaanaysaa ummadda reer Jabuuti oo iska dhex arkayso oo la yidhaahdo war sidee intaasoo gaari baa yaallo dabdamisa hadday ka dhacdo xaafadan inuu u jiraa baabuurka soo dhaqaaqaya halkuu biyo ka qaadanaya halkee biyaha loo dhigi biyaha yaalaaya halkuu ka heli baaladii loo soo daxalisbeen biyaha waa in la garto waa inaan isweydiino runa haddii kaleetase kunnaa waan jiri jirnay ayaa la oran doonaa maraan dheerayn dab ololaya iyo magaalada dul fadhidaa oo kolba say wax u dhacayaan kolba wax sii socdaan iyaan iswaayeynaa oon is arki doonin ugu dambeyntii walaalayaal maxaa xala waxaa xala waxa weeyaan shafaafiya dowladdu inay caddaato war anigu waan fashilmay madaxweynuhu wuxuu inaga yidhi dadku war uma hayaan 12 sano markuu waddanka xakumay ee 6 la doortay 6 kale loogu ceshay ee dastuurka la bedelay iska joog unbaad leedihiin buuri wax uma qaban karayo iska joogii baan ku ammaanaynaa waa inuu qofku yidhaahdo war anigu waa iga dhammaatay xukuumaddan way ka dhammaatay waa in la keena dad kaloo fudud oo wax qaban kara wadaf weeyaan dalkani caqiim maaha madhalays maaha ikhwaani fillah kuwan xataa garab joogay rag baa jira caqli leh laakiin nafti baa laga saaray qalbi ma leh kuwa kaleeta in garab joogin ee mucaarad la yidhaahdo oo siyaasiyiina way u qalmaan dalka inay xukumaan dalku wuxuu baahan vision cusub 40 sano kadib buu 400 oo aqal oo gubtay la xalin kari waayo 40 sano ku faanay ilaahay baa dowladda fashilinaya waxa lagu bixiyay malaayiin lacag lagu bixiyay si loogu daanso Ottawa laga daanso maaragtay Mareykanka laga daanso Paris laga daanso Lyon laga daanso maaragtay Holland laga daanso Brussels laga daanso maaragtay maashinaha casmise Beijing laga daanso maxaan ku radaa Jarmalka laga daanso Ruushka laga ajaa'ib Qaahira laga daanso Sacuudiga kullu makaan laga raqsiyo malaayiin lacag ka baxday finaaska يعني ماشي ugu yar 4 milyan 5 milyan oo faran baa ayaa la geeyay marka ilaahay wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala been bad daanskiin waa been way waa tar xaqiiqadu waxaanad ka sheekeynaysiin waa been waa tar runto marka maxaa la rabaa war waa daasheen dalkan ma maamuli karaysiin viishiki uu naga dhamaaday aragtidii way naga dhamaatay shaqadii way naga dhamaatay laakiin waan joogaynaa baldeedin 8 sano joogay Obama Mareykanka uu ciraystay uu madoobaado si kala noqday isagoo ina yarna uu koray uu iska socday maanta kadib nin kala yimid Mareykanka Faransiiska Sarkozy baa joogay inta Ismaaciil Mar uu joogay waxa joogay Chirac Sarkozy waxa yimid hadana Holland imikana Macron baa jooga waa afar aragti oo kala duwan baa waddanka soo sarqaysa Soomaaliya waxa soo martay inta uu joogo 5 ilaa laga soo gaadhay madaxweynaha imika qofku maaha inuu meesha geed ka baxay noqotid maayo dhagax soo taaganuun oo markaana dadka uu ceebeeya la waa inaad tiraahdo ikhwaani fillah way ka dhamaatay waxaan kariyay waan sameeyay intaaba iga dhantay inaan ka sheekeeyo dhagaxaan dhigo dhagaxdiina way dhamaadeen problemkani ma xal sameeyo waxaan u baahanahay vision cusub dad kale dadkiina way buuxaan kuwa ku garab fadhiya ka buuxaan kuwa ka fog bay ka buuxaan kuwa nacaysay ka buuxaan kuwa aad jecelayn bay ka buuxaan ma dhalays maaha waddanka Djibouti adigoo qura jiri kuwa kale ku heesaya been bay sheegayaan naftoodana been bay u sheegayaan ilaahayna been bay u sheegayaan aakhirana been bay u sheegayaan anako adigana ku naxayna taariikhdaadana aan ka naxayno ummadana u naxayno waxaan ku leenahay ana iska dahoraan ku sheegay meesha tan waxay u baahan tahay qof kale waxay u baahan tahay ekiib kale qoladani intay tagaan madaxweynaha soo diray kugu maartay kaaga nuugaysa kaaga lisanaysa macna ma sheegayaan siyaasi le hebel baa soo diray siyaasi ma siyaasi le dalka ay diray iimaankayga ay diray dadnimada ay dirtaa loo baahay saddexda xalbaha mushkiladan Quraanka soo noqonaysa xalka noqonaysa waxa halka ka baxaya ummadda reer Djibouti dhibaatadu way dhacday dadka fara badan ee mashaakilku ay ku nool yihiin garan maayo dariiqa dadku ay u marinayaan inay wax ururiyaan oo ay gacanta wanaagsan ee fiican ee loo dhiibi lahaa garan maayo la imika laakiin way ila tahay wayna ila fiican tahay dadnimana way tahay islaamnimana way tahay wadanimana way tahay inaan garbaha isqabsano annagoo kala duwan
inaan jeebkeena gacanta gelino oon ilaahay dartii waxaan ula bixi karna aan ula baxno la doondoonana nin ilaahay Jabuuti uu fadhiya ragana qaanaa fadhiya dad wanaagsan baa fadhiyo saalixiina mucaarad iyo muxaafid inta laga daariyo la rado wal hebel iyo hebel iyo hebel hanu dhiibno dadkaana lagu hagaajiyo wan wanaagsan ee ilaahay ka cabsoonaya subhanahu wa ta'ala ee damiir kale kadib waxa loo dhiibana dhado ummadii gaarsiya kullayto kuwaasina way buuxaan hadii la jecel yahay wala helaya hadii kale tana waxa weeyaan ummadda reer Jabuuti hasgarab gasho hana wax la qabato laakiin xalka runtii waxa weeye guryaha waaweyn ee maaragtay ummaddu ay leedahay hala sii daayo waxa guryaha lagu iibsaday dadkan masaakiinta lahaaye hala siiyo. Ama satina salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.